بسم الله waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee ahayd imaatinkii Prime Minister-ka Khayre maalintii Arbacada ahayd subaxdii waxaa la suray sawiradii Khayre magaalada Baydhabo daafaheeda habeenkii dhalinyaradi dadweynaha oo diidaneed dhibaatadii ka dhacday sanadkii hore 13 December ilaa 15 ayaa waxay suubiyeen sawiradii ay habeenkii soo wada fujiyeen haddana subaxdii khamiistii waa la dhajiyay haddana habeenkii waa sidii oo yeeleen haddana subaxdii kale waa la dhajiyay sidii oo kale la yeeleen xalay toole sabar walba waxa la dhigay nin waardiye ah 60 askari oo roondaana waa la sameeyay 4 tiknik ah hase ahaatee maanta markii uu yimid Prime Minister-ka magaalada Baydhabo dadkii diidana daraad yani rabitaankoodii la kufsaday waxa ay sameeyeen gadood ee rabeen inay ku muujiyaan dareenkooda nasiib daro waxa dhacday ciidankii Itoobiyaanka ee daraad xasuuqay ayaa haddana loo adeegsaday ee lagu kala eriyay dadkii ayagoo rabay inay dareenkooda muujiyaan marka waxaad moodaa dalka in uu galay xaalad aad u adag oo ciidamo shisheeye ah ay isu adeegsanayo ciidamadaas oo berigii hore ee dawladda markii la yegleelay Mbagati la diidanaa in wadamada dariska ah yani ay saameyn ku yeeshaan dalka marka waxa dhacday in maanta yani shactiradii uu la yimid ninkii Khayre ahaa Baydhabo baryadana Baydhabo salaanga siin wada yani maalay yani inuu meesha la yimaado isagoon yani si dawladnimo aan u hadlin isagoo mataqaana raba maamul ay dadka diidan yihiin ee maqaarsaar ah in dadka lagu qasbiyo ayuu meesha u yimid isagoo raba yani cunaqabateyntii la saaray maamulka gacan kurimiska ee maqaarsaarka ah ee lafta garaan hogaamiya in mataqaana beesha caalamka ay u furto dhaqaalihii balse waxaa dhacday in yani mataqaana xisbigii amniga cadaalad iyo isbedel doonadii in ay maanta ayagana qoraaladoodii ay muujiyeen ay mataqaana meediyaasha ay la wada hadleen social media waad aragteen yani waxa ka socdo Baydhabo waxa koonfur galbeed waxa ka dhacay ma ahan yani dagaal beeleed ma ahan waxa ka dhacay waa dagaal siyaasadeed dad rabitaankoodii la xoogay oo la kufsaday ayaa mataqaana iyo waxa is haysta dad la keenay marka dhibaatada ma ahan yani qaab qabiil ma ahan waxa meesha yani ka dhacay ma ahan yani dad beele isdagaalay ma ahan laba qofood isdagaashay ma ahan koonfur galbeed waxa ka dhacay kursi siyaasadeed ayaa la kufsaday musharixii qalbida badawaatil ee la afduubay ee la qafaashay marka waxa waaye haddii la rabo in yani ummadan la isu keeno heshiiskii shalay ahaa federaalka in la meel mariyo haddii la rabo waa in yani qaladaadka yani siyaasadeed ee dhacay ka dhacay koonfur galbeed waa in la saxaa haddaan taa la sixin wax mataqaana socon kara iyo wax kala socon kara aan jiri doonin maxaa yeelay kama dhicin Baydhabo yani dagaal sokeeye kama dhicin dagaal beeleed kama dhicin waxa ka dhacay waxa uu yahay waa dagaal siyaasadeed ee dad rabitaankoodii la diiday oo la kufsaday iyo dad waxaysan xaq u lahayn qaatay waa inta wax la isku haysto marka waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo inta nabadda jecel in arinta koonfur galbeed aan laga dhigin mid qabaa'il aan laga dhigin sida ay tahay waa in loo wajahaa waxa ay tahay arinta dhibaatada xasaladda ka taagan koonfur galbeed waa xasalad siyaasadeed ma ahan xasalad qabaa'il ama beeleed ma ahan marka waxaan leeyahay dawladda federaal ayaa ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay marka federaalka micnihiisu ma ahan in maamulka la dumiyo ninkii adiga aad doontid oo maqaarsaar aad keensatid kaasi ma ahan federaal adigoo yani haminaya wax aadan ogeyn in aad gaari doontid oo ah 2021 doorashada soo socota aan ku soo noqonaynaa yani taasi micno ma sameynayso taasi wax micna ay sameynaysa male ma ogaan kartid adiga inaad soo noqonaysid iyo inaad soo noqonayn in aad joogi doontid iyo inaad dhimad doontid maba ogidbo bal waxa way ummadda ha u xasuuqin ha u dhameynin ha curyaaminin ummadda maamulada yani ka daaya duminta ka daaya maamulada markii yani sida cadaalad ah oo fair ah oo rabitaanka dadka uu ku yimaado dawladda ayaga la shaqeynaa ma diidano shacabka dawlad doon waayo dawladda ma diidano marka waxaan leeyahay waxaadan higsiga aad higsanaysid aadan ogeyn
2021 inaad gaari doontid oo yani aad leedahay yani waxaan samaysanaa yani maamulo maqaar saara si aan beri usoo noqdo adeero damacaasi waa diyuusnimo, damacaasi waa dulinimo, damacaasi mid jira maahan. waxaan idin leeyahay maamulada ka daaya gacmeynta ka daaya, maamulada shacabka u madax banaaneeya rabitaankiisa. arrinta koonfur galbeed waxaan kusoo gunaanoodaa ma ahan in loo wajaho qaab qabiil ama qaab beeleed sida hadda yani hadallada loo dhigayo. dhibaatada ka dhacday koonfur galbeed waa xasalad siyaasadeed ma ahan mid qabiil iyo mid beeleed toona maahan. marka waa in la suubiyaa dib u heshiisiin siyaasadeed, waa in la suubiyaa dadkii la kufsaday iyo dadkii wax kufsaday, waa in mataqaana ay iyaga ka wada hadlaan, ay soo wada fadhiistaan, yani arrinta sida ay tahay loo wajahaa. waana mahadsantihiin.